وعنسر الله روبله هدياد ما أنت ودي أرسان حمر إن مر لبعض إذا ما تبدأ يبلا سوق رسان أو إذا كره مقالة الجوع دجال لقشان دكتور تعميله قاضو صاحب كادني أو بطلان جوعه أو ما أنت بوساسك ورسان تذكر كل انتي يبور بركي جاري يا علماء المساجد دورت كل انتي تفسير ده يجوا آخريسي كتب آخريسي يدك حياة مساكين تها يهانتار كوب بعضي أو ما أنت فروت اللي إحنا كقنيسية فرت اللي إحنا كقنيسية وعوي كنت عامل قاضي أنا إلهي كوي الدين يا ما أنت هذانا ذاتك الصومال لما النبي يسون بان كم ذا الصومال لما لو تمانيو أورنتي قال يا مسلم بالله الشيء إلا بابيو يا إذا ديرنا قبلنا أو كل بلد منيو تاسع صوته سنيس وحليا ولا madaxda dawladda loo doortay inay mas'uuliyadooda fahmaan bay ahayd ilaa ka ugu sarreeya ilaa ka ugu hooseeya inay fahmaan bay ahayd ummadana ay u hogaamiyaan xagga jiritaanka quruxda badan iyo xornimada iyo dadnimada haddii laga qaadana dee xayawaan la dhaqanayaad noqonaysaa oo baddiisii lagu dulcunayo oo macdantiisii lagu dulcunayo oo beerihiisii lagu dulcunayo oo xataa dadkeennii laga yaabo in xalin lagu qasho oo keliyahooda la diro oo eerboorada maarata meesha ay leeyihiin UN laga dhoofiyo keliyahooda ayaa dhici karta sidii ninbaha mar hore uu ku qaylinayay maanta waxaan la hadlayaa khaas ahaan ninka walaalkay Roble la yiraahdo oo runtii aan weynaa markii ugu horeysay farmaajo doortay laakiin laba jeer simbirraxday markii labaad imika ku jira simbirraxday labaad waan leeyahay waxa weeyaan khilaafkii hore wuxuu ka dhashay doofitii dhoofeysay dabadaha ee ka bilowday Ingiriiska ee ku xijisay Kenya ee ku xijisay Masar ayuu ka dhashay oo intuu ay dhabar ka soo taabteen oo ogeyn in lagu soo ballamay inaad ku galgalato dawladnimadaas sultan uu qabato xitaa doorashooyinka laftooda mas'uulka laga dhigay oo maantana ay maarataanay meel ku dambeyn doonaan Ilaahay in ogyahay meel ku dambeyn doonaan Ilaahay in ogyahay tan ugu dambeysana marka Djibouti tagtay waan la socdaan in siyaasadana u dheer doon daroonahay in Ingiriiska iyo Mareykanka iyo dawladda Djibouti iyo cidii kale soo raacdaaba si fiican dhabarka laga soo taabtay oo in amar gelina oo ciidamada soo duldhigay marka waxa weeye wadankaagu uu ka qaalisan yahay inaad dad kale ugu danayso inaad dad kale dantooda ku fuliso uu ka qaalisan yahay wadankaagu aan ku leeyahay soo dhaco dadkaaga Djibouti ka soo noqotay waxaad markiiba ku bilowday guddiyaashii doorashada oo og tahay samayntooda oo kaliya inay sanadii ka qaadan doonto marka hadii in guddiyaal dambe la sameynayo oo kulaba lagu heshiinayn goorma lagu heshiini 6 bilood wax ka badan baa iyagu la yaabiyay oo kan bedel iyo kan ma doonin iyo kan hebel bil jiraad haysan intii laga ku qaadan doon guddiyaasoo kaliya guddiyaashaasoo kaliya talabaad guddiyaasha markaad maartay burburisay de waxa weeyaan isla miiskii laftiisa baad ku magacawday adoon cidna kala tashan say guddi ku noqonayaan kuwaas kuwa hore oo bila lagu soo daalay ayaa burburisay kuwa adu miiska dusha ku qorortay soo noqonayaan guddi taasina waan kala talinayaa inaad ka noqoto weeyaano adiga iyo cidii maarday doorashada khusaysay sida kuwani gobolada haysta ee madaxweynaha aad ku sheegtaan iyo cidii kale ku soo raacaysaba aad isla eegtaan guddiga xitaa haddaad bedelaysaan talabaad waxa weeye horta guddiga intaan ka bixin guddiga tirtirideedu waxay keenaysaa hadafkii ugu weynaa ee lahaayeen Kenya iyo Imaaraadku iyo cidda ka dambaysa ee reer galbeedkii oo ah in doorashadani kullaba qabsoomin waxa la yaab leh iyadoo Soomaaliya oo dhan og tahay doorashada in
adiga oo roobla ah ra'iisul wasaare lagu wareejiyay iyo qoryahan madaxweynayaasha lagu sheegay ee gobolada horjoogayaasha ka ah in aad maartay hagaajisaan oo qabataan inay hadda marayso heer ay dib u burburto oo sidii Kenya ay doonaysay iyo Axmed Madoobi iyo maartay ay doonayeen iyo Imaaraadku iyo kuwa ka dambeeyay inay hadda cagta saartay oo dib u burburayso waxa ka sii badan ina burburka haddana farmaajo lagu eedeynayo oo ku eedeynaysiin waxa la yaab leh laakiin ummadda Soomaaliyeed haddii ayagu fahamkoodu oo u soconayo oo wax u arkayaan waa iyadna nasiib darro oo dadka qaar baa waxaad ka maqlaysaa farmaajo rasaasun buu afgarnaya firasilla Soomaaliya wax ka saarina rasaas baan ka saarina xamar dhixda ku leeyahay ninkaas xamar baa أو كفانيا إنه فرماجة كسر صار الرصاص أو كسر صار مدحته يده لكن كما فكريه إن حمر بربريس إن صدّن ضمبو صدّن صنعوا ضمبي إن كبضن تقال لوجر الدونه إن مجحدي إذا مضى وضنك الله صوت وبري دريس الله صوت حري توتها الله صوت شيء قبيل كود ها حوق الدلك أيد إن هذا خير اللي قد يدور تبع وحمر لو كلا صفة يسود دجالمان حمر إلهي بعد لا دهرت حمر وحلا إلهي بعد لا ده هذه يدك مساكتك كون ولا بقى إلهي بعد لدين واندين دعينا إلى بلاد كذا قبته وحن صلاحي حقا قلبك الله بعد الشيء بدو يمكن حكسر دعضي nin janna qayliyay oo ciidamada badda haysta oo maartaa dhulkii bal naga qaatay le oo xarumihii dhulkan lahayn ciidamada badda bal la qaatay le waxaan u oran lahaa in kasto inay qayriyayna hayna cidii ay mas'uul ka ahay ama khusayso inuu warqado u qoro uun bay haday ra'iisul wasaare tahay haday madaxweyne tahay iyo haday maartaa jannada ciidamada xukuumadda tahay iyo u qori lahaa laakiin meediyahan baasa imka dadka waxa la wadaagayay yani aflagaadun buu keenay oo dawaa aflagaad taa markuu ninkaas qayliyay guddi buu ninkii maartay saaray saadogtiinba wasiirka difaacu guddi buu saaray janankii ciidamadu markay guddi saareen seedad guddi saartaba isna lagu casiray ninkii maartay wasiirkii difaaca bimacna ayaan la arki wixii aan sameynaya miyaa taas Soomaaliya taasmeen khaarijinaysa in la yiraahdo dhulka aan boobay hadii la arko waan inay qofkii soo daya taasina waa taas waan sar leeyahay rooble hadii aad maanta u diyaariseen xamar inaad mar labaad ciidamad badbaado iyo bala soo garisaan oo ciidanka kale ee magaalada joogay dagaal la gashaan ku taamilo qaado saaxiibka danay oo Puntland jooga oo maanta Boosaaso ka warwarsan dadkii ku dhintay iyo burburkii gaaray iyo culimadii masaajidda hortooda ku dhintay ee tafsiirada iyo akhriyeysay kutubta akhriyeysay iyo dadkii qaxay masaakiinta ahaa iyo hanta halka ku baabaaday oo maanta faruurta dhexda ka qanisan yahay farta dhexda ka qanisan yahay waxa weeye ku taamilo qaado adana ilaahay ku weydiinaya maanta adaan ilaahay ku weydiinaya adoo ugu raaxaynaya isha Mareykanka ugu qaboojinaya oo isha Ingiriiska ugu qaboojinaya oo isha Djibouti ugu qaboojinaya oo isha Kenya ugu qaboojinaya oo isha Imaaraadka ugu qaboojinaya iyo cadawga Soomaaliya gudiga dibadba farmaajo laftisan waxa oran lahaa xilka qaadisan oo ka qaadiyo maartay ninkani ra'iisul wasaarihi isagoo doortay oo meesha keenay ee wariba doorashooyinkan u dhiibay horta inuu saa ugu degdegaan uma jeclayn in loo fariisto iyadoo la isweydiiyo oo maartaanay yani dadka mas'uuliyiinta oo dhan ee xukuumadda jooga ee madaxtooyada jooga in laga tashado oo horta isaga la soo fariiso dhulkan lagu haysto horta adiga laftaadu ka jawaab gudan waxaad u tirtirtay adiga laftaadu ka jawaab yana waxyaabaha sameeyay la weydiiyo oo maartaanay ilaan madax baa leeyahay dadkuna hadal buu isku afkartaa xoolna urta isku afkartaane la wada hadleeyahayd oo maxaad san u sameeyay la raahdo calaayad xaalimku waxa leeyahay ummadda Soomaaliyeed uga cabsada
adoo madaxweynihii ah iyo kan kale oo wariisal wasaarahaagii ah ummadda Soomaaliyeed uga cabsada inaad burbur dambe ku dhaco uga cabsada aan waxaan arkayaa khayr Allah ku siiyo farmaajo anigu waan dadka taageeranahay ummadaas inay Ilaahay ka cabsataan Ilaahay idin weydiin doonaa ma aha dunidu maanta ma aha xisaab dambaysanaysa Umar ibn Khattab wuxuu yiri warku amiirka ahaa haddii ay Iraq webiga Iraq ku yaal Furaat la yiraahdo hadday baqali ku turunturooto dariiqeeda ilaa anigu weydiinayaa buuri maxaa dadkan u maleynaysaan dad lagu tumanayo oo la leynayo oo la maartay la qixinayo oo ninkii madaxweynaha u haasa u galayo xamar habeen walba hanjabaad ku jirta oo waxay ku nooshay la garanaynin Kismaayo oo gacan gashay Kenya oo maalin walba halka maartay wixii laga maamulayo waxa weeyaan waxaad leeyahay ummadani godkii bariyaad ka soo jiidaysay aan toojba lagu soo jiiday lahaa ayaa imka hadana qarkeedii looga soo saaray ayaa hadda lagu sii riixayaa si dib loogu dumiyo waxaan leeyahay godka Soomaaliyeed mar labaad yaan la ku duminin ساعة صدّن سنة تنبؤ مجدي أو برعة وبدبادان وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إمام النافع كبر القرآن الكريم كهي علوم الدين الإسلام كه أديكو جوجو هوي جاجا إيه جوب تاع الشقاء أديكو كبرنا إيه حب عصرية أو أونلاين. والذاريات ذروا والذاريات كل أركاني دوكسي أونلاين كبرشة القرآن الكريم كه إمام النافع waxa uu bulshada ugu bishaareynaya inuu higaada ugu bari doono 6 bilood oo kaliya Imam النافع online waxa uu sidoo kale hab fudud oo online ah kugu baraya Qur'aanka Kariimka tajwiidka iyo xadiista adiga oo jooga hoyga